دوري صدق السنة اللي صار عفي محي إثيوبيا أود ولا هاد الصومالي كو على قلادين جرتي يوم حيسن ما أنت كو على قلادين كرين وحيابها ما أنت عن فرقين دون هذا حسوستان دولتي الصومالية الدحاء وحال جردي تلك إثيوبيا halkaasoo laga soo abaabulay jabhado SSDF SNM USC SDF waxa doonto ugu yeer in jabhadahaas laga soo hubeeyay lagana soo abaabulay Ethiopia jabhadihii waa ay soo galeen dalka Soomaaliya dawladii dhexe halkaas ayay ku burburtay waxa ka dambeeyay in Soomaaliya ay runtii waxa waa jabhadihii magaalooyinkii iyo degmooyinkii iyo deegaanadii ay ku dhex dagaalameen وأنا تاريخ ده بحكي برنا دبعت هذا إثيوبيا إنه هو يصير صدق سنة وصار دافع إثيوبيا أحسن نوع إيش الصمان وحيسوق أبى بش هو جامي كوحات ومت بوحوا هو بيوسو ديبتي هدي نقدان كونفور هدي نقدان وقوي وحيسومالي كو عرق على ذي أرمئات أفربان مركب وحي أكل ديبته هو جامي كوحات وأركيسي إن دولة كستو الصومالي للصور السوق إنه حوا أي بربوريس محيل بربوريس دولة دي هنا وحل لقى حنا بهوبكي وهو بسود سكرتين أيال ليري هو جامي كوحيدنا وحواي هوبك أيال سوسينا سوماليا تاس وحيكو قادة اللباتن صرم عشان يتوانك سنة ولا صار في حاكة دبي إن نوسو أباب شيء نمن وجيه دوبا وحي هنا لقرينا ما أوروما ما صومالي با ما إثيوبيانا ما عربا ما أجنبيا نو الله لأنك دونك لقى صنعي أيال لو سو دري سوماليا قرنا لسوسينا يا لها ومدة سوق ماذا كسر ماليسو مركز مقعين لو كلا بحي وحا صورنا وحوا إثيوبيا سبب واحد إنه جابي كل حديد ستة مقعين هذا يصور هذا إذا مو ذا مقدان أما هذا وضع أركيسان إنه وحوا كوسو أباب الشيء محي سومالي ودقويس مركز هذا محي لقيلنيسا إثيوبيا مركز عنقبتين تنا لقى قاضي مركز لقاليه إنه فرفروا محي لقيلنيسا وحي لقيلنيسا وحي شلك وجهي وجد سيدي كون ماموريسي وجد سيدي كون كرهيسي وجد لكن ما أنت وحبا ماشي لما هذا عنقبتين تبع لقى قاضي يدي بعد بكي كل أبتا ما أنت وح شل مريجيسي إثيوبيا الصومالي مريجيسي فرنتي وحوا لدون عمل ضرع سنة إني الصومالي بعضه ما أنت يدي كل أبتا وأركز ما أنت وحيابها هيست إثيوبيا فانو أورمو تجري نيمت وح ما أنت كفر فرن أو دبعتها وحنا القياس كرين what goes around comes around ayaa la yiraahdaa maanta waxa waa dhibaatada ay soddonka sano ku hayso Soomaaliya maanta iyada ku laabatay in waxa waa tigreegi shalay waxa waa heshiisku ku ahayn inay waxa waa runtii waxa waa anagana baabi'iyaan iyaga Ilaahay isku diray iyagiiba waxa waa dhaxdooda ka fatafatay iyagiiba kala booday marka maanta waxay taagan yihiin iyagoo waxa waaye kaliita wax walba dadka ugu liita dawladda ugu liidata ah ee burburkaasi dhibaatadaas iyo kala qaybsanaantaas iyo kala qoqobkaas ay ku jiraan ayay maanta waxa waaye damac weliba waxa badii dhul inay waxa waa naga qaataan isku dayayaan laakiin waxaas waa ay soo afjarmeen maanta waa qodobkii ugu muhiimsan oo aan ka hadlahay oo maanta waxa waa Ethiopia waxay shalay awood u lahayd ay nagu burburin jirtay waxay nagu burburin jirtay inay doqonkeena iyo waxa waa ninkeena ma taqaana calooshii shaqaysta ah inuu hub iyo qori soo siiso oo walaalihiis waxa waa u gumaado wax dawlad la yiraahdo meeshaas aysan ka dhalan oo dawlad kasto la soo magacaabo laga soo bilaabo kuwii carte Ethiopia burburisay tii Cabdullaahi Yuusuf iyada soo magacaabatay isla iyadii ayaa burburisay 2006 waxa shabaabku iyo waxa wax lamada kugu soo abaabusho oo wajiyadu duuban magaalada inta lagu keenay shabaab baan kula dagaalamay geemaha la yiri oo waxa qaarkood laga dhaadhiciyay inay yiraahdaan Addis Ababa ayaanu ka soo qadaynaynaa si excuse looga dhigto xamar loo soo galo rigi xamar jooga iyo marka jooga ayaa yiri Addis Ababa ku qadaynayna marka waxa waa anaga dalkeena waa difaacanayna meeshii doonaan waa sharci waxa waa terrorism ku loo degsado Mareykanka uu soo dejiyay September 11 kadib waxa waa nin Allah ninka tareed u aragto meeshuu joogana uu tagto Mareykanka waa waxa waa Osama bin Laden wax lamada inay waxa waa Afghanistan iyo godadkii waxa waa Toroboro ay waxa waa ugu galeen oo ay halkaas ku baadi gooban kuna soo dileen marka iyagana waxay leeyihiin nin Allah ninkii waxa waa sharcigaas la soo baasmariyay ayaa waxa waa ku baabi'inayna Soomaaliya 30 sano ayana lagu baabiyay laakiin waxa waa wax kasto cirka tago waa soo laabanayaan Ethiopia cirkaasi nala tagtay laakiin maanta Ilaahay naga soo dhigay in maanta hubkina laga qaaday in waxa waa dabaabadihii waaweynaa iyo waxa waa maanta hubkii ugu waaweynaa inaan soo ibsanayno qaarna deeqna lagu siiyay in ciyaalkiina maanta waxa waa within 5 years lagu soo tababaray
maanta waxa waa diyaaradaha waxa waa mataqaanaa mig 15 waxa iyaga kaxeynaya oo aan u baahnayn pilot kale inuu maanta la kaxeeyo helicopteradii waaweynaa waxa qumaati ku kacay inay maanta kaxaysanayaan waa guulo laakiinse waxa waaye Ethiopia how long waxa waaye mataqaanaa aysan ka fikirin inay waxa waa dhibaatadan weligeed aysan waxa waaye aysan ahayn permanent wax la yiraahdo oo ay maalin uun dhamaanaysay laakiin this is the end marka Soomaaliya hadda waxaan leeyahay guul waana guulaysatay Soomaaliya runtii wax allaala waxa waa inkastoo generation badan ay qasaareen generationadii qasaaray waa kuwii 90kii 10 sano jiray oo waxa waa maanta runtii iyagoo aanan iskuul xitaa aan aadin maanta waxa waa burburku ku dhacay 30 sano waxa waa burbur iyo dhibaato ay arkayeen bad laakiinse waxa waaye generationada soo socda waa kuwa ciishi doona marka shidaalka la soo saaro marka waxa waaye macdanta Soomaaliya iyo waxa waaye barwaaqada badda dhex eegagta la soo saaro waa kuwa ciishi doona annagasti 25 years si noolaan kara maanta wax qabsan kara laakiinse waxaan leenahay guul Soomaaliya